wafdi uu hogaaminayay maayir ku-xigeenka magaalada Burco Mudane Maxamuud Xasan Jaamac Xoday oo xubin ka yahay maareeyaha wakaalada biyaha isla magaalada Burco ayaa soo gaaray magaalada Helsinki ee caasimadda dalka Finland. wafdiga ayaa waxay ka qayb galayaan kulan ballaaran oo lagu soo casuumay in ka badan 250 dawladood oo ka dhacay magaalada Turku ee caasimadda labaad ee dalka Finland. kulanka ayaa waxaa isugu imaanaya xirfadlayaal kala duwan oo ka kala socda 250 dawladood iyadoo Soomaaliland si rasmi ah loogu casuumay ayna ka mid tahay 250 kaas dawladood ee ka soo qayb galaya. wafdiga ayaa hadal kooban ka jeediyay garoonka diyaaradaha ee magaalada Helsinki caasimadda Finland iyo xildhibaanad Rooda Cabdullaahi Xasan oo fududeysay imaatinka wafdiga iyo ka qaybgalka seminaarkaba. waxa kale oo aan ka qayb galaynaa kulan bandhigeed oo konton dawladood isugu imanayaan oo lagu soo bandhigi doono ardayda iskuulada jaamacadaha wax soo saarkooda iyo aqoontooda heerka gaarsiisay isna ka dhigay dawladda Turkiga. dabcan waxa kale oo aanu la kulmi doonaa jaalida reer Soomaaliland ee waddanka Finland si aanu isu xabooreysan oo uga warrano dalkii aad iyo aad waxaan uga mahad celinaynaa jaalida reer Soomaaliland ee Finland oo si qurux badan oo qiimo noogu soo dhaweysay magaalada Helsinki markii aan ku soo degnay garoonka. waxaanu si gaar ah ugu mahad celinaynaa Rooda Cabdullaahi Xasan xildhibaan Rooda Cabdullaahi Xasan oo runtii qiimo weyn dalka runtii ku leh. socdaalkaygana wuxuu daaran yahay seminaar caalami ah oo xagga farsamada ku saabsan xagga farsamada marka farsamo la yiraahdana waxa weeye biyuhu lambar 1 bal yihiin marka xagga farsamada ku saabsan baan ka qayb galaynaa ilaa iyo 7,000 oo qof baa lagu casuumay wixii ka gadaaleeyana jaaliyada reer Soomaaliland waa ku meena hadii Ilaahay ka dhigo waa maadsanta waxana aad iyo aad ugu faraxsanahay inay Soomaaliland ka mid noqoto 250 dawladood ee loogu yeeray ka soo qayb galay bandhigan seminaar badan iyo wax kana qayb galayaan tanna waa horumar ay Soomaaliland soo heetay aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa jaaliyada reer Soomaaliland meel kasta ay joogaan siba gaar ahaan caasimadda Maxamed Xasan Mataan telefishinka qaranka Soomaaliland Helsinki Finland.